waxaan ku bilaabaynaa sida tan. Waqtigu wuxuu go'aamiyaa qofka aad la kulmayso nolosha, qalbigaagu wuxuu go'aamiyaa qofka aad rabto nolosha, laakiin dabeecadaada iyo dhaqankaagu waxay go'aamiyaan qofka kula joogaya noloshaada. U shaqee sidii in baahidaada oo dhan aysan lacag keliya ahayn. U noolow si aan xad dhaaf ahayn. U soco si aan kibir lahayn. U jeclow si aan shuruud ku xirnayn. Wax u bixi si aan istustus ku jirin. Qabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ku fikiri jiray markaa weynaato ayaa wax wanaagsan samaynaysaa, ama sanadka dambe ayaad isbeddel samaynaysaa, ama jirto qof lagula ballamay in uu sii noolaanayo ilaa uu waayeel noqdo. Ha sugin waqti kale. Haddii saaka waaga kuu baryay, ilbiriqsi kasta aad neefsanayso waa fursad kale oo Allah ku siiyey ee ka faa'iidayso. Goortii albaab xirmo mid kale ayaa furmaa, laakiin waxaan inta badan sii eegnaa weliba si shallayto ah albaabkii xirmay iyadoo aan arki weyno kan inoo furmay. Ha ku raacin muuqaal, way ku qaldi karaan. Ha ku raacin dhaqaale, wuu dhammaan karaa. Dooro qof farxad kuu keeni karaa, sababtoo ah dhoola caddayn keliya ayaa maalin mugdi ah ka dhigi kartaa iftiin. Xiriirku waa sidii guri oo kale. Goortii dhalada nalka gubato, intaa baxdo ma soo iibsatid guri cusub, waxaad hagaajisaa guluubkii nalka. Dhimashada qof noo dhow ama aan naqaanay ma aha inay na xasuusiso ka sheekaynta wixii uu ahaa ama tacsi aan u dirno keliya, ee waa in ay xasuusisaa in aan isu diyaarino safarkeena nolosha dambe oo lagu waarayo. Please subscribe.